guud ahaan caalamka islaamka ayaa maanta oo kale sanad kasta laga xusaa munaasabada dhalashada rasuulka calayhi afdalu salaatu wasalaam munaasabada mawlidka nebiga oo kamid ah munaasabadaha qaran ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu qabtay goobo badan oo kamid ah degmooyinka iyo gobolada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu qabtay kulan diineed ballaaran oo lagu weyneynayo munaasabada xuska dhalashada rasuulka munaasabadan ayay ka soo qayb galeen madaxweyne ku-xigeenka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici madaxweyne ku-xigeenka hore ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Yuusuf Yaasiin culimada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland xildhibaano aqoon-yahano iyo dadweyne kale oo tiro badan culimada iyo mas'uuliyiinta munaasabadan ka hadashay ayaa ka waramay qiimaha weyn ee ay leedahay xuska iyo weyneynta dhalashada rasuulka ee ummadda islaamku ay ku muujinayaan weyneynta nebiga iyo jacaylka ay u hayaan calayhi afdalu salaatu wasalaam caalamka islaamku waxay u dabaaldegaan si aad iyo aad u weyn oo xad lahayn inaguna insha Allah taala waxaan filayaa inaan ku daadan doono caalamka islaamka u dabaaldegaya ihtifaalka rasuulka haddii ihtifaalka rasuulka la waayo taariikhdiisu ayr bay u dhamaanaysa mawlidku wuxuu ka sheekeeyaa min dhalashadiisii ilaa intuu ka oofinayay khaaliqii abuuray bal haddaba nebi ilaahay ammaanay ammaanteennu waxbaynu ka helaynaa oo wax ka dambeeya ma jira waa innaka calaa khuluqil cadiim ilaahii abuurtay baa darajadiisa halkaa gaadhsiiyey عاشوا حياتي كان خلق القرآن كان خلقه القرآن قرآن كنا ومعجزة أبدية وإلا ما أنت للضوبة يا دونك تاجن وي وعليها رنتي حفلتنا وحلقت المامي كان من شعائر الإسلام شعائر الإسلام كموجين الإسلام كمن نقنيسا ويا رسول كان محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين أنبياء با إلهي كسو ختمه ولا نبي بعده نبي دمو كون كان من يا مجرو كتاب سماوي وصدق يا دم مجرو كتاب كإلهي وصدق يا رسول كنا محمد صلى الله عليه وسلم يا كون كإلهي كسو ختمه بولي صوتك يلا شاطر الذكرك الله مبسوطه ايو كواسين مسيلمه كذاب اول اسمه جن مسلم بيس او با كقدا ما توكله مسلم بيس قوم بقى كقضاء ما أنت وكلام مصطفى سيد وغفلت لي بقر مخلوق قيسة هبين كنا هبين نذا كم مضن لو مديسن يا الله موحدين نقد جاي يا مؤمن كالدعاء إبلاد لقى مجن قالوا يا المحاضرين أي مقردي وحن كجبحي يا مارسكي قبيقة الله يوم مقبول لوجيل هنا هو مولدك محبذة وتكونها ربي ونقوم عاشي ما أنت وحوي هالكي مناسبتي وقوي إذا عاصمة اللي هو قبل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بكسر غيب قلي فرحد والميتة يعني لما أنت واحد نكون بلينا يا ما أنت مناسبة العيدة حفلة مولد النبي كنتي واحد فعلان لها إن وضع كوردن حفلة ما أنت لقوه يوم إني هالكن سبحان الله هاي المدحدي قرنها لكن halkan mar hadduu fadhiyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland isaga cid kasta xukuumadda ama dawladda oo shaqo qaadayo halkan fadhiya wuxuu ugu jawaabay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi al-mar'u ma'a man ahabba qof walba cidda uu jeclaado ayuu nicisahanaya marka walaalayaal nabigu wuxuu yidhi alaa laa iimaana liman laa mahabbata lahu qofkii aan maxabba lahayn wax iimaan ma leh bi'ay munkarin بأي أنا وحا أنت مركل الله كل ميو والله النفر سلي النبي أما أنتي سوى الله النفر وين أنتي سوى الله النفر إلهي بكتابك سينغفر أنت مركل الله صار وريه ما الله يسوق كينه ما أنتوا بشينا الله جب يجو ما أنت إسقنا قيمة هو هي كتير رسولك محمد ما مرك أين كل منا حاران نغني يا ولله إلا خير كيو دم كل منا إلهي نهروي نايري وافعلوا الخير لعلكم تفلحون نبي محمد وكشكي أو ده وقت هو مناسبة مركي دمنا وحول إن مولد لا دقاوة بدعو شيخ أو صوتي ما أنت مولد النار دقي ببالي
malaha mawliidka aanad fahansanayne inaad munaasabada nebi maxamed ka sheekayso ayaaba mawliid ah ku doogsaday qudhiisii umanow xabiibkii qiimihiisa gaarka yaa qiyaasi kara sharaf مرحبا نسير غاسدنا مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا نرتجي منك شفاعة مرحبا عند رب العالمين مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا نرتجي منك شفاعة مرحبا عند رب العالمين مرحبا صلى الله على محمد مرحبا weynaynta iyo taqdiiminta nebiguna waa lagama maarmaan oo muhiim bay noo tahay inaynu taariikhda nebiga iyo fadligiisa iyo mucjisaadkiisa iyo salligiisa iyo waxyaabihii khawaariqul caadaadka ahaa in laga sheekeeyaa muhiim bay noo tahay waa lagama maarmaan nebigu sala allahu calayhi wasalam laa yuuminu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi min waalidihi wa waladihi wannaasi ajmaciin mid idinka mid ilaahay muu rumayn buu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ilaa uu noqdo mid iga jecel waladkiisa iyo waalidkiisa iyo dadka oo dhammaystiran dhammaantood waxaan leeyahay haddaynu nahay ummadda reer somalilan jacaylka nebigeena calayhi salaatu wasalaam warintii aanan maanta ka maqan ama aana weli meelaha ka hadasha ee u arkaysa wax khaldan in la xuso nebigeena calayhi salaatu wasalaam waxaan leeyahay war ka soo noqdo aan u midowno haddaynu ummadda reer somalilan nahay inaynu xusno nebigeena iyo jacaylka nebigeena aynu u midowno waxaan leeyahay walaalahayga laga yaaba inay istustay fikrado khaldani culimmadu waxaa laga yaabaa nin yaroo lacag loo dhaqaalo haysta iyo nin madaxo sidoo kale ah inay maalin hadda u yeedhaan ama inaa kaane xaflad yar ama hawl yar orod inugu yimaadaan haddii maanta loogu yeedhay xafladda inta leeya qiimaha lee khayru khalqullaahi nebiga calayhi salaatu wasalaam suubanaa oo maalinta dheeshadiisa hay inay maanta ka maqnaadaan anigu waxaan leeyahay bal xisaabta isa saaroo isku miisaama kuwa aad xaflad xustaan aad joogtaan iyo xafladda maanta aynu joogno ee la xusayo eed ka maqantihiin labadaa un isku miisaama isku miisaamta qof waxba baran isaga dembiyo ma saarna laakiinse culimmadu wax baratay maalin walba membarka inoo saaran ee nagu celinaysa wanaagga ee inoo sheegaysa taliya tusaaleyna sida diinteeda suuban sida ku timiday nebigeena si loo soo saaray taariikhdiisa dhalashadiisii intaa waa ka sheekeynaya dee culimmada intaasoo dhan ka sheegaysa haddana in haddana idhahdan xuskii nebiga geliyaan muhimir geliyaan waxaan isleehay malaha ma wanaagsan aad uma fiicna sababtoo ah wax ka khayr badan inaynu xusno nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam innagu ma caabudayna dee ilaahay isagaa bayna yidhi ilaahayna caabudayna abuuray laakiinse waynu xusaynaa xuskaan dembiyadee